Hello guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa walaalkiin Kimaale Dara. Soo dhawaada mar kale video cusub. Episodadii ugu dambeysay oo championshipka ku jirnaa. Saacadu jeedno waxaa joognaa bishaan yani March joognaa. Kulamadii ugu dambeeyaan ku sii jirnaa. March hadda kulamadan Southampton iyo Leicester iyo kulamadaas aan dheelaynaa. Kulanka Southampton noo soo horeeyay 3-2 ayaan noogu badisay. Sidoo kale Coventry sidoo kale way naga badisay. Micnaha waxaa nagu socdo guuldara nagu socoto ma fahantay guuldara nagu socoto waxyaabaa lala yaabaa waxay tahay mataqaanaa in tiimka ilaahay ma ku darnaadee kulamada simileed aa dhaho guuldarada nagu socoto way nagu socoto waa yaabanahayni wax walbaa sameeyey wallahi markana waa kana Axmed wuxuu u soo dhawaa Cabdiqaadir laakiin kubadda soo laga soo badbaadiyey waa kana Martinez wiilka dahabiga ahaa ayuu la celila anta macnaa ma fahantay Martinez waa laga yaabanaa kulamada hore oo dhan waaliyo ahaa wallahi kulanka marka hadda Leicester oo baxeeno Leicester waa koox maxaa la Premier League ku soo guuleysatay waa koox soo aragtay Premier League ciyaarihiisa wuxuu yahay laakiin kooxda aan weli ku soo guuleysano weligeed aanan tagin oo hadda u ordayso aniga ma fahantay waa kana Basan Daka oo soo gala laakiin kubadda xirka ka soo celiyay daafac waa xirka wallahi daafac oo tashana marka waa kana Axmed yaa wallahi wuu iska tiiriyay wallahi yaa the legend the one and only ninkan hadda Premier League imaano hadda Premier League imaano ma ahaan wallahi soo wax yeeli doono horta asi iyo dad badan horta waa nala joogi doonaa ma fahantay wow waa ku dhufteen la asi dad badan nala joogi doonaa adi taada kale Martinez ka cunuga Martinez la dhahayna waali waa mogta wallahi Martinez waali waa kos wow 3-2 Oxford ugu badanay kos Martinez ka hadda aan ka sheekeynayni waali waa sababtoo wuxuu noo imaaday 65 inuu ahaa jeclahay oo noo imaaday hadda almost waa 69 awoodiisa ma fahantay waa 69 kulankaana sidoo kale Kane wax ku soo dhaweynayna kooxda loo yaqaan Southampton waana kulan FA Cup teeda kale FA Cup ka ani hadda iguma jiro maxaa la lahaa yani waxyaabaa koobka muhiimka iguma jiro horeelka muhiim FA Cup ka hadii awayno waa iska caadi hadii hadda aan maxaa la dhahaa aan idan sidoo kale soo gudubno kale wax normal markaas macna wax dhib nagu haya mala waa iska normal hadii aan qaadno waa kasii qurux badan tahay FA Cup ka in aan qaadno maxaa la dhahaa championship kan aan soo baxno Premier League aan soo baxno waaba sidii la rabay xiliyaareedka ugu horeeyay kulaha Premier League na dheel waxaa kaloo dheeshaa Europa League na dheel waali waa wallahi ma saas waa mugta horta hadii hadda qaadno waxaan soo baxayna Europa League na soo baxayna inta hadla gool qurux badan iga dhaliyay wallahi bismillah waali gool waali iga dhaliyay Ramsdale binji u fadhimay marka hadii hadda yani FA Cup ku kala hadda qaadno Europa League imaanayna teeda kale jawi digna ku jirnaa waxa ka sii fiicnaa lahayd in championship ka aan soo qaadno inkastoo championship ka hadda unrealistic uu yahay qaadistiisa sababtoo dhibco badan nagu sare kaalinta labaad kooxda ku jirta dhibco badan naga sareysan fahad marka ma u maleynaa wallahi in maxaa la lahaa championship even xitaa qaadi karno ciyaarta hadda soo jeedin ninkii Martinez ayaa shaqaystay FA Cup ka 2 gool midda kale finaanda FA Cup ka kaliya ku dheelna mugta jaaladan waa ku haystaa waali waa xilaareed kale ama aan dhahaa idan ku cishanayna wallahi wallahi fahanteen markana waa kana banaanku soo dhigay Cabdiqaadir kubadda soo laga soo celiyay laakiin goolaya ka soo badbaadiyay Martinez waa bedel la sameeyay Martinez iyo waxa kale oo keenay maxaa la ninkii dhul socdaasna sidoo kale waa keenay waa kana markaan dhul socday abo Master Xasan dhul socday abo ninkan waxa waaye weerarka asi lagu soo bilaabo ku qurux badan laakiin gadaal maalinta ku imaado uu shaqaystana hadda gool qurux badan dhili wallahi baaska asaa dhiibtay dhiibtay waa socdo hore u sii baxay xutaayeen hay waa kana waa joogaa isi baaska isi فهمت سو قروح بدن ودي بتو والله كبدن اسل سيده كلام مهند موسن كسو داهنا او سو علي هاف فولي او دمسترنين او نين كان والله كبد ku dhuftay qolaya luwa ma no qolaya geeski soo mariyay aloo ka dhax bixiya islaaba Southampton mar kulanka saasa ugu soo harnay ayaan dhaxasa aan maxaa la dhahaa ugu badanay kulan kale ku xiga waxa naga bidi Watford hal noogu baysay sidoo kale QPR 5 iyo 3 noogu baysay QPR waa ka kaalinta 20aad ku jirto فهمت هدرسفيلد تانا ka badan idan hal ibra ugu badanay dan waxa u soo baxnay waxa imaanay maxaa la dhahaa West Coast imaanay oo maxaa la dhahaa Bournemouth imaanay Bournemouth waa kooxda hogaaminaysa horyaalka championship kooxda hogaaminaysa waana kooxda maxaa la dhahaa loo baahan yahay yani the bar top waa iyada waa macnaha kooxda u baahan horyaalka inay qaado ama horyaalka inay awoodiisa muujiso waa inay Bournemouth iyo ka soo baysaa ana hadda saa isleeyahay hadda kaalinta shanaad ku jirnaa so guuldarooyinka nagu dhacay dhibka noo keenay xataa kaalinta shanaad hoos u sii dhacay kaalinta saddexaad ku jirnay labaad waxay noo jirtay guuldarooyin badan nagu dhaceen hoos u sii dhacnay marka guuldarooyinkaas waxay nagu qasbeen kaalinta shanaad inay imaano wadada kaliya hadda Champions League ama waxa la lahaa Premier League aan ku imaan karno waxay noqonaysaa in championship ka playoffs ka aan soo marno ma fahantay
بلايفتا سومرنا مدة كلا مارتينيز لبد جول عنم حتى مارتينيز جول بدنا كوقبيست والله نكان وحنا الله وحنا بدنا مداد عقد مشو أدينا دي بيسينكو marka waxa waaye waa maxay noqonaysaa in markaas championshipka oo playoffskiisa soo dheelo kale playoffs markaas soo dheelo dan Premier League ay imaano Premier League markaa imaano horta isbedelo badan dhacayo horta kow Premier League markaa joogtid TV money lacag badan ku soo galayso oo maxaa la ciyaaraha TV badan laga deynaa moogtaa lacag badan ka soo galayso Europa League hadda FA Cup ka aan qaadan waaba ka sii fiican tahayo هذا FA Cup semi-final أجوجا semi-final هذا معناها كوح وين أنكو آذنا وهو لكن هدي عن قادنا وكله ولا الكاس FA Cup وكله قادنا وكله أصلا يوروبي ليج تجينا هبينا خار حلقة ويوروبيان نايس ديل نفهمت مش بدل سمينا عبد الله ضد أنا كيني ياتي بدل الأول صعد سيدا كله كان أرسل كوسر ماتي محل بونموث وحواي هذا ساسا محل لها aan ku soo kala tagnay kulanka waa semi-final kan waa ogtiin oo FA Cup waxa la imaada Wembley la imaada ninka Banks u jeeda Ektika u jeeda dad badan u jeeda wallahi marka miro waa kaas maxal lahaa yaakal dad badan ay joogan faante mideeda kale ragaan Ektika iyo Florian Wirtz iyo dad badan ay joogan ragaasina iska ilaalinayaan laga rabaa marka saan talamo noqonayso macnaha kusoo dhawaada marka garoonka Wembley Stadium waa FA Cup semi-final waliba Liverpool oo baxayna waana mid kamid ah kooxaha ugu awoodda badan ee ka dheela qaaradan Yurub waana mid kamid ah kooxaha ugu maxaa la dhahaa fiican markii kubad ahaan la fiiriyo anaga waxaan laga rabaa markii inaan dardar ku soo galno waxa la baleeyada qaar iska ilaalinayna Virtus oo kale kamid ah inaan iska ilaalinayna sidoo kale ma fahanti ragaas oo kale iska ilaalinayna laga rabaa Khalid meel ku turo kubadda daya aboy waa shaqaysanayna 15 daqiiqo ugu horeeyay Liverpool cubka ku xiran ma fahanti laakiin dibka jira wuxuu yahay orodkan oo kala haystaa Frimpong hadda weerar maxaa la counter attack noo soo qaaday orod waa la celi waa macnaha goolhaya soo baxay James waxa yani maxaa la dhahaa Janis ku qabtay xitaa ma siin fahanti figa laga dul qaad Liverpool waxay ku xuntaa intaas ayna Virtus u jeeda iyo Morton Dilsino xitaa Ektika waa kaas waxay ku xuntaa Liverpool intaana halka counter attack kugu soo hesho oo kugu soo ordaysa ayadana counter attack-kaas waa taari kalena Salah ma Dilsinoyin mostly baleeyada waaweyn maadaama European dheelooyin ama leena Champions League dheelooyin way fadhiisiyeen macnaha ma fahantay maadaama dheelsiinooyin way fadhiisiyeen oo muhanad kubadda laga badbaadiyo laakiin way fadhiisiyeen so marka aniga koox yar aba nahan saacada laga bilaabo ma fahantay koox yar waa naga soo yin wallahi hal gool lagu leeyin markana waa kana Frimpong kubaddaas laakiin waa ka soo celi James ka soo celi markana waa kana Khalid Libaaxa wala Khalid Libaaxa Frimpong kubadda ka celi slot بس نكان نصيبه وذا real life كان نصيبه والله half time كسا لو كل مري كبدا هلي برا لو كل مري halka gool maxalla Jeremiah Frimpong oo dhaliyo counter attack uu soo qaaday halkaas gool lagu maray so next half harjeena gool inaan dhalin doono markana waa kana Cabdiqaadir banaan ku mariyay laakiin kamo goolashan kala ma cuno dhikir ugu ridir waa kan wallahi touchline ka jooga dhikir ugu ridir ba goolashan kala ma cuno waa kana Martinez afkooda goosha Martinez kubadda banaanka mu dhigi doonaa Martinez oh my god wadali cunugan macquul ma cunugan waali waa wallahi cunugan numberka xataa inaan ka bedelo waa Abdullah Damelo ka sacbino Abdulweli ninka codad ma yaqaananiyo waa u sacbina ninka positionkiisa kala wareego u sacbinaade ma fahanti taari kale saan in maxaa la dhahaa kulligood ay u tartamaanadan ay ugu jirto markii Premier League kale la imaado kale maxaa la dhahaa mid walba markuu bandhig fiican uu sameeyo kulamo badan la dheelaynaa wax badan la dheelaa no Cabdiqaadir maxay waxa cunaysid bismillah kulamo badan la dheelaa marka bedel sameeynaa horta Xasan keenay sidoo kale Cabdiqaadirna waa bedel Cabdiweli keenay markana waa kana Cabdiweli markiisa wallahi Cabdiweli let's go goosha soo saari noogu tur celebration noogu tur loo xii celebration gaane ninkan wuu fiican yahay laakiin nasiib xumo bisa dilayso wax ka nasiib xumo Mali football club uma dheelo ma fahantay laakiin sidii kale waa fiican lugtiisa wala saaran yahay wallahi ay si loo dabaaldegooday waa kana Xasan markana Xasan ugu dari doonaa Xasan waa ugu daray Xasan dul socday ninka aantan waa kacsan yahay labadan kulan oo FA Cup ka dheelo gololno bilaw macnaha ma fahantay kulankii horena oo maxaa la dhahaa quarter finalka dheelaynin wuxuu gool ka dhaliyay Southampton gool ka dhaliyay haddana sidoo kale Liverpool oo gool ka dhaliyay macnaha ma fahantay wala cag qurux badan aad wallahi let's go Chiesa bedeleen waxa keenay Dybala keeneen oh my god Dybala keeneen Liverpool Dybala ma keensataba let's go herkii libaaxa wallahi herkii libaaxa herkii asi shaaftadaas ma ahan shaqo kale ma laha mugtaadii
shaftadaas ma shaqo kale ma lahan. So Liverpool saas ugu badanay automatic san hadda waxa ku joognaa finaal ku joognaa ma fahantay. Vertis iyo Dybala iyo dad badan ka badan Frimpong iyo dad waaweyn ka badan wallahi meel saarnay. xasan dhul socda la janaata waa shaqeeyay hal isku dayo sameey hal gool la gadaal oo ka imaada almost 10 daqiiqo aniga ma dheelin mugti horta 10 daqiiqo ma uusan dheelin wallahi let's go brother. marka horyaalka hadda aan u maano horyaalka saa wada ognaa horta qaadistiisa horta way noogu dhamaatay laakiin waxa sameey karnaa waxay tahay yani in aan u dagaalano afarta sare in aan u dagaalano si markaas playoff-ka u dheelno saad u jeedno 15 daqiiqo markay ciyaarta maraysa waxa gool noo dhaliyay ninkii Martinez ha Martinez kaasna sidoo kale intaan kulamada loo baahan yahay waxa aad iyo aad u socdo mideeda kale awoodiisa 70 ku sii dhowdaa macnaha fahantay awoodiisa 70 ku sii dhowdaa ninkan awoodiisa way sii soconaysaa 70 tagaysa 70 dadka Premier League kale marka tago ninkan 71 72 kala ka rabaa fahantay 71 72 kale meelahaas oo kala ka rabaa cos Premier League ma rabano in maxaa la dhahaa 4 player 5 player raadiyo ma rabo hadii 50 milyan kale liisiyo kale ad hal player kale ama laba player kale inaa keena macquul ah fahantay meesha hadda waxa waaye garoonkan The Riverside Stadium guuldara naga soo gaartay oo 2-1 nooga badiyay Middlesbrough 2-1 nooga badisay Middlesbrough waa horta kooxaha hogaamiyaasha ka mid ah umaleena kooxaha ugu waaweyn oo maxaa la dhahaa hadda kaalmaha koowaad ku jiro kale kulanka marka waxa ugu dambeeyay championship-ka kulanka Preston North End ugu dambeeyay idan sidoo kale waa maxaa la dhahaa Breja galnay ninkii aan u soo dirnay in maxaa la dhahaa oo Soomaaliya noogu soo fiiriyana wax fiican muusan noo keenin وفهمت بس كسر جرينا أصلا سيدو كلوا برنينا شحذنا كوسو قالنا حسن هذا الأول صعدا كوسو بلعبة كلن كيف كاب كفينالك so let's go كلن كان وكلن وجو مهم سن وجونا محل ده أي عضك مالي فوتبول كلوب تاريخ أبد إيديشو صبته وحدي له هسا كوب وجو قديم سن و the oldest محل ده كلوب كاب الله دجواي فهمت كوس كوحدي كوجولي ستا automatic waxay position ka heli kartaa European Championship inay ka dheesho oo Europa League inay dheesho automatic Europa League adoo dheelisid oo maxaa la dhahaa iloowina hal sano ka hor waxaa joognay horyaalka heerka saddexaad joognay hadda horyaalka heerka labaad ka soo socnaa waxaa ka sii daran finaal taaganahay waxa u baxayna Newcastle u baxayna finaal FA Cup taaganahay mid kamid ah koobabka ugu caansan maxaa la dhahaa looguna tixgeliyo markii la joogo maxaa la dhahaa Ingiriiska marka وتاريخ ومعناها تاريخ وإنكاس matter of 2 years ku sameeyay macnaha 2 sano gudahood ku sameeyay ninka laga yaabay waa ninkan waa hogaamiyaha 5 gool u leeyahay Martinez 5 gool ayuu ku hogaaminayaa FA Cup-ka fahanti waana daayir 17 jir waa ninkan weyn ma hadiga almost 17 ama 18 sano jira macnaha fahanti hadii 2 sano 3 sano kale Championship-ka ama Champions League marka tagayno kale ninkan waxa laga yaabaa 80 meelaas inuu gaaro ما ديتي meelaas uu gaarno xawaaye oo si shaqeysana marka koobka hadda dheelayna shakadiisa waday waa koob maxaa la dhahaa 8 sano maxaa la dhahaa 20 sano ka hor la dheeli jiray ilaa hadda la dheelaa wana koobka ugu xamaasada badan waaye mideeda kale in koox Premier League ay iska qaada ayaantan loogu badan yahay markana waxa laga yaabaa koox Championship kina qaado markana waa kana Xasan wuxuu soo dhiibay Martinez let's go ninkan daqad maxaa la ciyaartii horena daqadii 15 dhali hadda daqada 16 dhali taageeraashu galo wala taageeraashu Newcastle ma xas ma taageeraashana caadi go'an taageeraashana oo biya ku Newcastle oo maleynaa moogta wala ku Newcastle oo maleynaa marka kunista maxaa la sida ku aaminsanay midda kale Martinez markuu goolkiisa lixaad waa FA Cup hadda uu ka dhilno faatay FA Cup goolkiisa lixaad uu ka dhilnoyaa macnaha way soo carfaysaa FA Cup in aan dhali karno maxaa la dhahaa aan qaadi karno way soo carfaysay laakiin rajadaas waxay u agtaa inuu burburi doono kooxda Newcastle sababtoo gool Breja keeneen waxa dhaliyay Anthony Gordon gool qurux badan oo ku soo dhaxqaato wallahi heerka taa kale la gafay heerkaas shaaftadaas ka horeyso shaaftadaas ma iska dhaafi kara miyaa macnaha shaaftadaas ma joojin karo kana daaficin laakiin markan uu adag yahay wallahi waa kana markale Jolinton kubadda soo laga soo celiyay haye banaanku bixiniyo waa kana Martinez banaanka soo dhig Martinez kubadda banaanka soo dhigno wala loo gacli banaanka soo dhig ha isku dilin kubadda isku dilin half time la maray Cambias lagu maray ciyaarta waa 1-1 FA Cup kooxdan mawaalanta hal sano ka hor hadda ku dhaakaban hal sano ka hor waxay joogtay Championship-ka Football League 1 ay joogtay heerka saddexaad hal sano ka hor joogtay haddana waa tan Newcastle gool ku leedahay ma fahantay waliba iyadoo indhaha caalamka ay wada fiirinayaan galab la dheelayo caasimadda London lagu dheelayo garoonka Wembley Stadium lagu dheelayo ma fahantay taageerayaasha dhan ee soo wada maxaa lahaa ay wada fiirsanayaan waa galab waqti xilli dambe ma ah la wadurda waa la soo wada jeedaa
kulanka oh my god let's go Mali Master Mali Junior shaxdiisa iyo tactics waa xawaay waa lagu faa'iiday wallahi markaana Jolinton weerar soo qaaday laakiin kubadda soo ka cuneen haye waa kana Jolinton markaana banaanku soo dhigay oh my god isaaq mi waxaas isaaq waay dhiikar uu ku riday wallahi idaaw iga tagaan ka dana nagu jirtay ma dana nagu jirtay wallahi buuqas maalin ka rabna baay waa kana Martinez haye Martinez gooliga dhig Martinez no Martinez banaanku mariyay no Martinez ina gool ka dhigta laga rabay badal sameeyay Martinez badalay waxa ka yaata keenay sidoo kale Cabdiqaadir badalay Osi badalay Cabdalla Osi waxa keenay nigalo yaqaan Abdullah badalay laakiin 5 daqiiqo ka soo wareegin oo xasaas ku soo dhamaatay ciyaartii Newcastle FA Cup finaalka oo faraxsana wallahi sababtoo ah 2 sano maxaa la dhahaa ma 14 bilood ka hor ama maxaa la 18 bilood ka hor waxaa joognay horyaalka heerka saddexaad joognay maantana waa kana finaal waxaan ka tagnay Europa League macna u soo baxnay Europa League dheelina deeq wuxuu qaadi doonaa koobkiisa ugu horeeyay abid intuu ka soo baxay junior koobkiisa ugu horeeyay wuxuu noqday nasiib wanaag FA Cup uu noqday ma fahantay koobkiisa ugu horeeyay kulligood waxay qaadi doonaan koobkooda ugu horeeyay sababtoo waxay ka soo wada baxeen junior ka soo wada baxeen wada ayr koos hal player oo koox weyn u soo dheelay ma jiro kulligood hal player koox weyn u soo dheelay ma jiro ma fahantay ودائر عردن هذا صوت بحيان كل جود تالي كلنا FA Cup وحنا نقدونا أبد كوب وجوهري مالي فوتبول قادو تاريخ هذا يسود عصابة وكوب وجوهري سي مالي فوتبول قادو أبد أنت كوحدة لسنتها ما فهمت أحبطن بدرس لكن هل سنة لسنتها هل سنة وكبر أنت ولا مالي فوتبول كواجي فيفا 21 سمينا ما فهمت لكن وقت كاس فيديو مدوب جرينه saad koob ku soo qaadnay waxa waaye koob kala noo sii dhiman hadda sababtoo ah playoff ay dheelina playoff-kuna waxa waaye semifinalkiisa Southampton oo baxayna oo home away 2 kulan aan dheelno ka bacdi Wembley ku soo laabanayna marka waxaas aniga sameeyeen maadaama marka kooxda maxaa la ku cusub tahay koob ku cusub yahay sama moogta baski alla soo baxna adii waa sugu weynata koobka championship-ka inta soo qaadaneen playoff maaragtay inta soo qaadana waa sugu weyni hadii nagala qaado waxaan dhahnay maxaa sameeynayna kana iskiis dabaal degayna kana Mali Junior da Abdalla Osi day taageeraasha dabaqay soo koray xitaa wallahi oh my days bro oh my days san ani wallahi marka bilaaba career-kan sama filaneen wallahi sama filaneen والله اسمه دهين محل كتسين كانوا كلا عركيسا كوبا خادسا ولا اسمه دهين مرة بدنا كقصتي أسألهني كارير كان مصعتي إبر ويا ما كدافتي مالك ما كبلاود إنجليز كو أدقيه لكن ما يعنده ما وحاس كذا فواكيننا نيجي دقة أو حسكو صو صبري FA Cup كسكو صو صبري كوب كيس وجهري let's go congratulation كل ما بليف كلهم وجهري وحن محل سميليد أسكره هاي أو هما هين كلهم كاس لبي لو برجع قالني كلهم كان يصيدوا كلهم حنديلنا محل كلهم كلوكت لبعض بليف كسم فينال كم ساوثهامبتون أو بحنا ساوثهامبتون سميريس ستاديوم جوجنا مدة كلنا ساوثهامبتون هريال كأس الجوجنا هريال كأ واسكو صور دبنا مرة بدنا اسكو صور عرقنا ما فهمت بليف كهذا بيقول عصبة معناه بليف كهذا أو بحنه يقول عصبة والله مركنا وكنا مارتينيز نيكا كلي نقف جكرا والله نيكا كلي نقف جكرا مارتينيز what a player bro what a player oh my days bro رجال نقول عند غدي سدون ازدياد رجال قرح بدون اللي والله نيكا عرشر رجال قرح بدون اللي جيمس وبدبادي واي لكن ما حسوا كي ماننا عرفت هذا بريج مادام بريج تعال كان سيدو كله adiga 30 daqiiqo bacdina rigoor kala helnay waxa rigooradaas marka noo bedelay ninka loo yaqaano Mr Ahmed Deeq kabtankeeni ninkan wuxuu u socdaa koobka labaad inuu qaado koobkiisa labaad xirfad inuu qaado u socdaa yata let's go bisa marka waa ka soo baxna kuwa ka soo baxna salaam dusar salaaman marka Deeq wuxuu u socdaa koobkiisa labaad inuu qaado u socdaa ma fahantay mudada xirfadiisa kubadda cagta كوبكيس لبعض الصعداء هذا فينال جوجنا بلاي اوف كفينال جوجنا يا أبعدونا مركا كوحدة كله حكصوب بحيو نورويج كصوب بحيسو سجعلها إنه نورويج صوب بحذا ربعني ما أنت نورويج إنه صوب بحذا ربع كوس إيدا نسكو أودنا نسكو بدأ أنا نورويج مش صوب بحذا نيكا مركا نقرب إن أسكيل أنا ونيكا وجوش شارجت نيكا وحالقي يابا مرؤون ونيكا أسلي هاي لعل ياتا هدوب بحبدل كيس ديرسي مفهمتي ninka kaliya ku bedelan karo waa Josh Sargent ma fahanteen ninka kaliya asleeyahay ku bedel lacalla hadii masteriyata ama la soo dalbado ama maxaa la dhahaa uu dhaawac galo oo dhaawac dheer uu galo kale ninka kaliya ku bedeli karna waa
ninkii Brian James ahaay wuxuu qaatay jaal uu qaatay markana waa kana Martinez banaanka u soo dhigay Yatta goolaya ka soo badbaadiyay laakiin playoff-kan waa playoff waalan waa sida caadiyan xitaa kulankan markii la dheelayo waa kulan inaba caadi ahayn ma fahanteen real life markii la dheelayo xitaa kulan waaliha waaye kulan laga yaabo aaboy war ninkaa muxuu badbaadiyey maxay tahay wuxuu badbaadiyey goolaya maxay tahay waa kana deeq banaanka soo dhig laakiin kubaddaas way soo gaari weyse Martinez way gaari weyse waa kana Martinez banaanku soo dhigay waa kana Muhammad let's go markii loo baahan yahay ninkan waa Toni Kroos caadi oo wallahi no Muhammad ma ahan waa Yatta waay let's go Yatta 1 Josh Sargent 0 ma fahantay ninka lagu bedeli lahaa ninka lagu bedeli doono Yatta lacala hadii maxaa la positionkiisa oo maxaa la dhahaa wax gaaraan ma aragtay ama asita dhaawac soo gaaro ana hal nin bisa rabaa laba player rabaa inay ku bedelo iyo qorsheysan player koowaad waa Josh Sargent oo hadda midka arkayno oo Norwich u dheelaayo ka labaadna sidoo kale wow deeq oh my god banaanku mari laakiin ka labaadna sidoo kale waxa waa Fabio Silva wuxuu u dheeli jiray Rangers iyo u soo dheelay Wolves oo soo dheelay Fabio Silva asna sidoo kale shubba moogta labadaas ma ahan player kale ma u rabano waanta player kale ma rabo koobkeeni labaada qaadnay muddo isbuuc gudaheeda macnaha isbuuc gudaheeda kii hore sabtiya qaadnay kana sidoo kale axada qaadnay maalintii aad muuse waa inside a week dhaxdiisa oh my god bro oh my god wow wallahi waa aamini lahaa wallahi bila I can't believe hirkada waa aamini lahaa let's go James soo gala hey ole champione ole kabax taageerayaasha waa dabaaldegooyin wallahi koobka qaadir markaas waa EFL playoffs qaadnay deeq koobkiisa labaad uu qaaday let's go koobka ilaa ay caawanka dabaaldegayna waa ordayna ku dhaa lafka soo qaada yay let's go koobkeena labaad qaadnay koobkeena labaad xirfadda kubadda cagta ee dhisan tahay Mali Football Club ma fahanteen kooxda inta dhisan tahay waa koobkii labaad ee qaadayso waxa it means a lot bro wallahi it means a lot in maxaa la koox from zero ogeyn maalintii ugu horeysay ay dheelaysay ma fahanteen haddana sidoo kale playoff-kan ay wadato maxaa laba koob ay wadato oo Premier League-na u soo socoto kaaga sii daran Premier League waxa igaga sii daran ma taqaanaa waxaan dheeli rabnaa Europa League dheeli rabnaa moogtiin horta FA Cup qaadna Soomaa Europa League dheeli rabnaa oh my god yow baska mar labaad la soo celi koox markay koob ku cusubtaa saan waa moogta hana la yaabinaya koobku waa nagu cusub yahay FA Cup-ka la soo celinayno koob kale waa naga jabay wararaan la soo gaaray waxa waaye waxaa jibiyay ninkii ahaay Yatta ninkii ayaa jibiyay asoo ku dheelayo koobka ma fahantay so FA Cup-keena la soo ceshanayno asal ay meesha soo dhiganay marka koobka marka waxa waaye koobkeena labaad oo ahaay taageerayaashu waa faraxsan yihiin marka episode marka inta soo noo weekaana waxaad leeyahay episode ka ka heshay waxa waaye like dheh subscribe dheh nagu soo biir haddii ku cusub tahay gambalaalka furo subscribe marka dhahayd marka insha Allah kan iyo kiisi kale inta ka gaarina waa walaalkiin Kikmaaleyda leh goodbye